socotaan waa baahinta tooska ah ee Facebook live waxaan haatan ku suganahay bartamaha magaalada Hargeysa halkan oo goor dhaweyd hablo lagu qabqabtay ama magaaladu ay si weyn u daba gashay oo ay ka waramayeen bal marka halkan waxa imika joogta hooyo kamid ah hooyooyinka iyagu ku ganacsada bartan bal waxaad ku soo dhawaataa si toos ah ayaa lagu daawanayaa marka hore magacaaga iyo bal waxaad noo sheegtaa sida ay dhacdadu u dhacday aniga waxa la yiraahdaa Sawda Maxamed waxaan ahay hooyo halkaas intarka fadhida oo ku iibinaysa muus saacada alxamdulillah rabbil caalamiin horta dhulkaygii oo nabada ayaan saacada 12 habeenimo aanu fadhinaa sida dhacdadu u dhacday bal hadaad Sawda nooga waranto وحقاق maadaama halkan aad imika wax looga iibsanayo iyadoo ganacsigeeda ay iska wada tobal uma doonayna inaan mashquulino laakiin si iyagu dadweynaha halkan ku sugan kale ayaan wax ka weydiinayaa bal sida ay iyagu goorta ay la socdeen imika dad 500 qof ku dhawaad toos ku daawanaya live horta isku wanaagsan laakiin goormaad maqashay sida dhacdadu u dhacday horta aan arabsiyaan mariyay marka hore dad badan yar badan aan weydiiyay waxay walaal habluhu iyo berigi hore horta habluhu xajir jiray dadka wax weydiin jiray saacada la u sheegay oo intii walaal 500 baa laga dhibay walaal 4 shaqo si oo naqaamada dadka wax weydiin jiray deetan yar badan baa ka dabaqeelaha inaan baa la hadlay marka dhaqan laakiin aan dhaqankii wanaagsanaan ahayn dadkii wanaagsanaa yar habluhu aan xidhan baa la ii sheegay laakiin shaahid ma ahayn oo arinta wax live oo aan arkay oo suurta kala goobjoog ma ahayn been waxaan barnaamijkii adigana aad iyo aad baan ku salaamaya saaxiibo in badan baan saaxiib ahayn in badan media waan ka daawaday wariyaha kaliya ugu wanaagsan ee tacadul shaqeeyada wadankeena nimcaynu ku jirnaa wanaga coonana musiga iyo nimcada ku jirnaa aad iyo aad baan ku salaamay saaxiib aad baan santahay in saaxiibayaal waxa xusid mudan in bartan ay tahay barta aad u wareegaysa baraha bulshada ee dadku ay aad u soo dhigayaan oo ah halka cadaani meherada la yiraahdo ama telesom centerka magaalada wadnaha magaalada Hargeysa maadaama haatan ay saacadu tahay xilli dambe waxa aan isku daynay inaan bal soo xaqiijino halka ay ku sugan yihiin hablahan caawa sida weyn baraha bulshada u dhex wareegaya marka saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa oo aan tagnay waxa naloo sheegay inay haatan halkaas ku sugan yihiin sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska oo aan la xiriiray waxa uu ii sheegay in labada hablood inay laba hablood ahaayeen isla markaana ay surwaal iyo shaar magaalada ku dhex marayeen iyagoo boolisku waxa ay sheegeen in imika iyaga naftooda la badbaadinayay oo halkaas la badbaadinay marka hooyadan oo iyadu sidii aan haatan idin sheegay goob jooge ka ahayd waan ka xunnay in ay inkastoo markii hore aan ka codsanay in aan muuqaalkeedaan asiidayno laakiin haddana waxay u muuqataa in aanan raalli ka ahayn in aan wejigeeda baahiyo laakiin bal macluumaadkeedu waxay og tahay marka ay wejiga qarsato ayay noo sheegi doontaa bal waxaad nooga warantahay imika 200 qof dad ku dhowbaa si toos ah ku daawanaya oo doonayeen macluumaad aad siiso bal marka macluumaadka aad la wadaagi karto sidii wixii aad u arkaysay inaad noo sheegto Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal maxay haday habluhu wayna soo mareen hadii ayna soo mareen hablo aad waxaan ku uri maxay haday dhaqankoodu u foolxiyay bay haayeen hase ahaatee adigu magaalada dhalinyaradii joogtay ayaa ku orisay adigu ka bacdi markii dambe waxaan ku uri waa la xabada laga reebay hablihii waa la xidhxidhay marka walaalayaal waxaan soo jeedinayay in hablaha noocaas oo kale u labisanaya amba saas oo kale guryahoodii iyo hooyooyinkood sida wax u dhacan nooga waran adigu wixii aad arkaysay goobjooga wallaahi waxaan arkay anigu maxay heeday dhalinyarada ku orinaysay laakiin ma dhex tagin anigu marsaasa dhacay adigu intii aad arkaysay haayo walaga dadka laga reebay bulshada daba yaacday iyo dhalinyarada waa lagu fooriyay waa laga reebay marka dharka ay qabeen ay boolisku ku taxeeyeen ama aad u arkaysay maxaa kamid ah saraawiil baa kamid ahayd waa hagaag aad baad mahadsan tahay macluumaadkaadna la wadaagtay inkastoo ay gabadhaasi wejigeeda diiday in ay muujiso laakiin si haddana macluumaad